دعوات كعالم الإسلامي كالسعوداء أما مسلمين توضان مرنا ويرقوا ليسانيان مرنا هوس بودعيان مرنا ويرقوا ليسانيان مرنا هوس بودعيان maxaa keeni kara inay xoogaystaan kow waxa keeni kara inay dacwadan in loo qabto ilaahay dartii dadkana ilaahay loogu yeedhay aanad adigu isugu yeedhin dadka in ilaahay loogu yeedho aanad adigu isugu yeedhin ma waxaad rabtaa inaad atbaac yeelato dad badan oo ku raacsiisana oo hebel ku haya waxaad doontaba markaa magacaagu ahaado ama urur sheego ama kan sheego ama kan sheego mise waxaad rabtaa dadku inay rabbigii abuuray ku xidhmaan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala raacaan asalku dadku waa inaynu ilaahay ugu yeedhno haddaynu rabno inay guulaysato sida awgeed baa ilahay wuxuu leeyahay waman axsanu qawlan miman dacaa ila allahi baa layidhi miman dacaa ila allah dadka meeshaad ugu yeedhaysaa ma aha gruubkaaga inay noqdaan iyo sidaad adigu fakaraysa inay fakaraan iyo saad wax u aragtay inaad kuula arkaan iyo saad wax u qiimaynaysa waxaas waa masalo kale dadka waxa loogu yeedhayaa waxa weeyaan rabbigii abuurtay inay raacaan rabbigii abuurtay inay raacaan qul haadihi sabiilii adcuu ila allah nabigu muxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu ku yidhi qul waxaad tidhaahdaa haadihi sabiilii أدعو إلى الله إلهي بدتك ويانا يعني ادعو إلى سبيل ربك إلهي جدك سدتك ويانا جدك ربي قارسينا يا دتك ويانا فإن الدعوة وحي ناجح نقوم خرتها كو مركا يتهي دتك إن إلهي لو حره ضمت هذا ذا مركا يتهي ما هينا مقع عشو inaad maamuus hesho inaad xoolo ku hesho inaad koox badan oo adiga kaa dambaysa heshid waxaasi maaha waxa dhabtahay wax weeyaan dadkan inaad rabbigood bartid oo rabbigood ku xidhin ka labaad waxay leenahay dacwadu waxay naajix noqon kartaa dadka waxaynu ugu yeedhaynaa hadduu inaga inaga muuqdo waxaan uga jeedaa dacwadu inta badan hadal maaha dadku marka dacwo laga hadlayo inta badan waxay moodaan muxaadaro iyo deris la dhigay inay tahay muxaadaro iyo deriska la dhigaa waa wax ka mid ah laakiin wax ka muhiimsan baa jira waxa ugu muhiimsane koowaad waxa weeyaan inaad adigu qudwa noqoto inuu diintu inay adiga kaa muuqato waxaan odhan karaa maanta caalamku wax la loolama islaam oo naflihi ma yaalo laakiin haddana maxaa hortaagan waxa hortaagan muslimka dhaqan xumada muslimka hortaagan Soomaalidu maxay yiraahdaan riya haday dib leeyihiin dabadooda ku qarsan lahayd bay yiraahdaan dadku markuu muslimka sidaa u eego wuxuu oranayaa war haday naf leedahay iyaga naf yeelan lahaa